gudoomiyaha ururka shacabka Somaliland garyaqaan Maxamed Maxamuud Xaashi Timo maanta kamid ahaa mas'uuliyiinta shacabka reer Gible kala soo qayb galay xuska maalinta qaran ee 18 May ayaa shacabka reer Gible uga mahadnaqay sida ay u muujiyeen qarannimada Jamhuuriyadda Somaliland soo kale wax ugu baaqay inay ilaaliyaan nabadda soo kalena shacab iyo dawlad oo diyaar garoobo difaaca dalka gudoomiye Timo ayaa yiri waxaan maqlayo gaar ah oo shacabka reer Somaliland gaar ahaan shacabka reer Gible oo leeyahay anfaliyo sidii amadu maanta ay u dhibaateen oo ku muuqata ururka qaranka ee Somaliland dowlad reeran oo halkan marayay oo aan qayb kasta oo wax ku soo tahay yaa ku jooga aan anfaliyo Nairobi waa maalintii qaranimada Jamhuuriyadda Somaliland ee loo soo noqday oo furta oo maalintii badan waa maalin u baahan in si badan loo diyaariyo waxaan ay aqoonyo waxaa ka ugu jiraa dadka bariyahan waxa ku sida xaalado siyaasadeed iyo dagaalo runtii shacabka Somaliland waxaan ay nabadgelyada waa muhiim inuu deel la ilaaliyo oo qarannimada difaaca waa muhiim oo dadkeena iyo dadka ku jirto waxaan isku duuleynaa iyo dawladda iyo dadka ku xiraaya marka ay ilaalino nabadgelyada Somaliland dinku waa tacaawun isticmaala laakiin in xal laga gaaro oo aanay noqonin wax dadka qaranka ku qabto ayaa muhiim khilaafka siyaasiga ayaa maas وحرمان دونا وطرشوا كل وقت يوم ينعمل العبرة وحن مسوي إنه يروح المسوق إنه وحن مسوق إنه يكون مالهم وعلى كل مدينة يقرنون على العالم أنا مكمل بان هاي أقول لكم يا يا رب الله وصلت الله أنا سكرتير هاي ما أقول لكم قرنون Somaliland هو وعلى هاي قرن هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.